بالعالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إلهي سبحانه وتعالى يا نمهد علينا اللي نقدق مسلمين إسلام نبدا نوقرتو نسيي بفضله وكرمه يقصي نمدي سنقو سيي أن كوغوتا نقدق وحي لغو فرضي علي أو صلاته جماعة كوغوتا الله نقدق بمهد سبحانه وتعالى سيدا أن ودعقنا هاي وحان نقو صوفون له بشي رمضان oo khayrka badnayd ayaa nagu soo fool leh bishaas oo ay naga xigto ayaam yar caawa waxa weeyaan waa maxad maaratay caawa waxa weeyaan waa 25 waxa nooga hartayba 5 maalmood ama 4 maalmood 5 maalmood caawa 25 tahay oo waxa weeyaan waa 5 maalmood ayaa nooga harsan marka ama bari marka lagu daro 6 maalmoodna waa dhici kartaa inay noqoto bishii bilaha dhan ugu khayrka badnayd bilaha oo dhan bilaha 12 oo sanadka bishii ugu khayrka badnayd fadligeeda aan la koobi karin qaniimadii ummadan ilaahay ka dhigay subhanahu wa ta'ala qofka doonaya inuu sahay qaato aakhiro u sahay qaato yaani waxa weeyaan wuxuu haystaa goob iyo waqti oo sahay qaato waqtiyalka ilaahay baa kala fadilay subhanahu wa ta'ala sida oo amaakinta u kala fadilay iyo ilaahay subhanahu wa ta'ala oo qaadan u kala fadilay amaakinta marka la fiiriyo wuxuu ilaahay subhanahu wa ta'ala u fadilay guud ahaan ardada oo dhan masaajideeda ayuu fadilay gaar ahaan haddana saddexda masjid oo Makka iyo Madiina iyo Baytul Maqdis ayuu fadilay iyaga ayuu si kala fadilay oo ugu fadilay badiyay masjidka Makka thumma masjidka nabiga sallallahu alayhi wasallam thumma masjidka Baytul Maqdis sidaas oo kale ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu kala fadilay oo kala sareysiyay ayaamaha ayuu kala fadil badiyay iyo bilaha wuxuu sayyidu shuhur ilaahay ka dhigay subhanahu wa ta'ala bisha ramadaan ee nagu soo fool leh iyo ilaahay wuxuu ka dhigay sayyidu shuhur bilaha oo dhan sayidkoodii buu ka dhigay bilaha oo dhan iyada ayaa sayyidu ah haddana iyada nafteedu si kala fadilay 10ka dambe ayuu si fadilay ilaahay subhanahu wa ta'ala haddana iyadu si kala 10ka dambe naftoodii laylatul qadriga ayuu haddana ilaahay subhanahu wa ta'ala si gaar ah وصي فضلي وحويا ووقت بركاتك إلهي سبحانه وتعالى إيا نفحات كيسا إيا خيرات كيسا إسكد أيان وأي يعني محد مارتين مروا الباب إسكد جوكتيهين يو إلهي كالي سبحانه وتعالى قفك دونيا أدونك إنه كسهي قاته آخر سهي قاته قفك دونيا إنه دنبقيسي كتوبت كيانو قفك دونيا درجة سري إنه إلهي أكتسى كهله سبحانه وتعالى وقتك أقوم مناسب صن أقوم وينك بدني وبشر رمضان نقص آدم لكن دو حاجرة بشر سمرك سوقشوا إن بدن أوضتك كمدا أنا نجمد أي وحي سبيان بشر وناج ماشي بإن معالي الأمور لك سبضه أي وحي سبيان ملاه وحن أيوه محد مارتي وليته ayay galaan oo maxay tahay dambiyadii ayay bas laabaanba haday tahay xaraam cunay tahay ummadda oo la kala fogeeyo muslimiinta oo la kala saaro dhinac walba tahay ayay wixii ku dadaalaan bishan inay sameeyaan baynama dadna ay bishan ka faa'iideystaan oo ay ilaaliyaan afkooda in hadal xun oo ilaahay raali ka ahayn هذا إلهي رالي كاين أو كسب حكا إلاليان وحا إلهي رالي كي هي أي كد دالان أفكود إنه كسب قرآن كي أخريان حديث كنبي أغنى صلى الله عليه وسلم
أذكرتي بلا إيمانيا لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله الله أكبر أي أقرنيا صلي النبي صلى الله عليه وسلم تاس أيو بدنيا وواحد بشان رهب قف إنه كسحي قاته بشان صاصعته نقص فوله مركا إن بدن أيو نبي صلى الله عليه وسلم أيو نوغو ترترسيي وأيو نبينا صلى الله عليه وسلم وحنا للدونية إلهينا ومحد مارتين للربا إن أن محد مارتي بشان دنبيالك أسكا دقنو وحي حما أنصوك سبنا إن أسكا دقنو بشان إن توبت كانو شهر توبة لينا بشان وبشان لتوبت كانو ساس درتت يو النبي هدبا صلى الله عليه وسلم آدم لوغو ترترسينيا إن بشان خير كده بتسنو شرط إذن إن أسكا إلعالينو أوامر بدن يو النبي نقوسيي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة أوريي نبي كوري صلى الله عليه وسلم والبخاري ومسلم بيسوا سارين وحوري نبي صلى الله عليه وسلم الصوم جنة أو الصيام جنة صومك وقاشان صومك أصوم إنسان قاشان أيو إذين يهوي محو قاشان كو يهي صدح الرماد أيو قاشان كي يهي جنة من النار نار تقاشان أيو كي يهي جنة من الآثام دنبيالك قاشان أيو كي يهي جنة من المعاصي معاصي دي وجود أهان وحكي يهي قاشان قاشان محلولة جيدة ده قاشان وحبك مركو كوسا صعدو وحي اللي يساقر لقوه بمعنى ساتر ويان وكا حجابيا حجاب وكا قطعي صومك وحو حجاب كاقي يهي نارتي sababta waxay tahay soomka oo naarta xijaabka ugu noqonayo laana soomka waxa ku sugan kaf nafs aan shahawat nafta oo laga celiyo shahawaadka laga celiyo wixii naftu nacbayd oo la koro la sameeyo waxa naftu jeclaydna laga celiyo naftu maxay jeclayd inay xaraamta ku hadaaqdo inay wax iska cunto inay wax iska cabto inay wax disho inay wax dhacdo ayaa naftu jeceshahay waxyaaba xunxun mar walba qofka naftiisa ay jeceshahay shahawaadkii ayaa hadaba qofka uu iska celiyo nabiguna wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri jannada wal jannatu mahfufatun bil makarih jannada waxa lagu hareereeyay waxa naftu nacab tahay ayaa lagu hareereeyay والنار محفوفة بالشهوات نار تروح لوها هريري ويحي نفته أي تعليد أي نار تلوها هريري هذه يقفكم مركا أو ويحي نفته تعليد أو السمايو نار تبقفكاس أسعدا لأن وحويان إيو حديث رواية كالي وبخاري مسلم سكن وريان حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات نارته waxa lagu xijaabay oo xaajib looga dhigay daaha naqana daah looga dhigay waxa naftu nacab tahay ba naarta waxa daah looga dhigay waxa naftu jecelay ayaa daah looga dhigay hadii daah guri haduu qof daah leeyahay ee qofku daah iska wareejiyo maxaa ku xiga guriga waa soo dhex gashay bimaana qofku haduu shahawaadkiisa iyo waxa naftiisu jeceshahay oo say iskontaroolin naftiisa oo san xakamaynin qofkaas naarta ayuu ku socdaa hadii laakiin naftiisa uu xakameeyo وكف النفس عن الشهوات نفتنا أديد شهواتي قفكاس حاجة أسعدا جنة يوكو سعدا جنة دي هدو قفكم محواد مارت وحويان وحي نفتو نعبيد محي نفتو نعبتهاي وحي نعبتهاي إن محد مارت آن لحظلين هذا الخير ما وحكي أن لوهدلين قرآن كإن لأقريو ذكري إن للي ماذو وإلهي الله سبحانه وتعالى صلاة بدل إن لا تكذو صلي النبي صلى الله عليه وسلم إن لبديو نفته ونعمته إن وحلا صدقيسته نفته ونعمته هذا أنت تشيرو نفتي سي مركز وحويا وشمدي بكوس على قفكاس سبب تمركا علماء الحيليه
oo nabigu u yidhi sallallahu alayhi wasallam iyo xikmada ku jirta yani as-sawm junna soomku waa gaashaan min an-naar naarta ayuu gaashaan ka yahay ilaa xadiis baa sidaas ahaaba nabigu sallallahu alayhi wasallam uu yidhi as-sawm yani hisnun hasinun min an-naar bi junnatun min an-naar wa hisnun hasinun iyo dirbi adag aad u adag ayuu naarta idinkaga yahay soomka iyo idinkaga ah laana maxaa dhacay markuu qofkii soomo shahawaadku oo dhan meel ayuu iska dhigay markaas makaarihdii ayuu galay markaas haddaba maadaama shahawaadku wixii naftu jecleed oo iska dhigay meel oo naftii ka celiyay saas ayaa naartiina qofkaas maxad maanta uu xaajib uga noqday saas xaajib ay maxad maanta soomka uu ku noqday laana qofku markuu soomo maxaa dhacay shahawaadkii waa iska tuuray shahawaadkii buu ka tegey naftiisii buu ka celiyey maxaa dhacaya markaas inuu haddaba naartii uu ka fogaaday jannadiina uu u dhowaaday baa noqonaysa marka sidaas darteed ayuu nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam as-siyaamu junna waa gaashaan soomku waxa weeyaan xadiis abu umaama radia allahu tacaala canhu uu wari nabigaan u mid buu yidhi sala allahu alayh wasalam markaasaan waxaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow camalka ilaahay ugu jacayl badan yahay ii sheeg markaasuu wuxuu yidhi abu umaamow soomka ku dadaal buu yidhi soomka ku dadaal fa innahu laa mithla lahu wax lamida ma jiraan soomka camal la eg ma jiro meesha maxaa ka fahmaysaa soomka waa ka sarreeyaa acmaasha qofku uu sameeyo oo qaar xataa culimmada ka mida ay yidhaahdeen soomka yani waxa weeyaan xataa salaadda waa ka sarreeya laakiin hadduu salaaddu sida raajixa ah way ka sarraysaa soomka oo axabu alacmaali ila allah waxa weeyaan acmaasha ilaahay uu jecel yahay as-salaatu calaa waqtiha waa salaadda oo la tuudo waqtigeeda lagu tuudo laakiin soomku waxa weeyaan aad ayuu u darajo sarreeya meesha waxaan ka fahmnay soomka in darajadiisu aad iyo aad u weyn tahay marka haddaba marka uu nabigu sala allahu alayhi wasalama uu yidhi as-sawmu junna soomku waa gaashaan faida kaana axadukum saa'iman haddii qofkiin sooman yahoo soomo falaa yajhal walaa yaskhab walaa yarfad haddii qofkiin soomo jahli yuusan samaynin jahligu muxuu yahay gardaro qof ha gardaraysan qofna ha gardaraysan buu yidhi nabigu sala allahu alayhi wasalam hadal xun ha ku dhihin hadal xun ha ku dhihin ficilun ha ku samaynin maxaad maaragtay adinkaaga iyo afkaaga iyo intaba waa in laga nabadgala iyo uurkaaga afkaaga adinkaaga uurkaaga qalbiga xumaan muslimka ugu qaban gacantaada iyo lugtaada iyo acdaadaada xubnahaaga oo dhan muslimiintu ha ka nabadgalaan afkaaga muslimiintu ha ka nabadgalaan ha caayin ha xamanin weliba marka nabigu yidhi sala allahu alayhi wasalam as-sawmu junna waa gaashaan markuu yidhi nabigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi gaashaankaas markaasuu riwaayo kale ahayd as-sawmu junnatu min annaar maa lam yakhriqha soomku waa gaashaan junnah weeyaan maa lam yakhriqha laakiin waa goorma waa hadduusan dilaacin saatirkaas waxaas naarta ka xiga hadduusan isagu jeexin qofka sooman soomkiisu wuxuu noqonayaa saatir min annaar saatirkaas hadduusan jeexin buu yidhi uusan dilaacin wuxuu u noqonayaa gaashaan buu u noqonaya see loo dilaacinaya isagana dilaacinaya muxuu ku dilaacinayaa maalan xan ayuu gelaya xan hadduu galo isagoo sooman soomkiisa wuxuu jeexay xijaabkii naarta ka xiga waa uu dilaaciyey yacni naartii kama celin karo soomkii markaas soon la jeexay buu noqday naartiina kama celin karo sidaa darteed qofku inuu aad u ilaaliyo culammada qaar ka mida sida abu camrin alawsaaci raximah allahu tacaala rag kalena waa loo nisbeeyey arrinkaas waxayba yidhaahdeenba oo ay ku tageen ilaa ana alghiiba xantu yacni yufadiru asaa'im qofka sooman inuu afurinayo qofka sooman hadduu xanto xantaasi soom qofkii waa afurayaa bay yidhahdeen laakiin
culimada intooda badan waxay dhaheen ma afurayo qofkii laakiin thawaabkii oo dhana eber noqonaya laakiin maalinka isagaha ma afurin qof cunto cunayo kale ma noqonayo laakiin dembi weyn ayuu galay qofkaas wuxuu jeexay xaajibkii naarta ka xigmuu jeexay markaas halis waxay u tahay naarta inay u soo gasho ay halis u tahay marka soomkeena inaan ka ilaalino xan iyo sida nabigu nooga la dardaarmay sallallahu alayhi wasallam fa idha kana ahadukum saa'ima hadii qofkiin riwaaya kalena fa idha kana yawmu sawmi ahadikum qofkiin soomkiisa hadii la gaaro maalin qofkiin uu soomo fala yarfath rafath yaanu samaynin afxun yuusan ku hadleen ficil xun yaanu samaynin jimaac yaanu samaynin afkiisa ha xakameeyo hadal xun yaanu ka dhawaaqin ficil xun yuusan samaynin hays ilaaliyo is-ilaalin weyn baa la rabaa qofka inuu is-ilaaliyo walaa yajhal gardarrayu samaynin bini aadam waxaa dhacda in badan in bini aadamka isagu uu ku gardaraysto oo isaga laga baxsan waayo midaa ku daandaansanaya midaa wax kugu dhufanaya midaa ku caayaya midaa ku xamanaya warkiisaa lagu keenay maxaa samaynaysa ma intoo kalead ku samaynaysaa nabigu maybu فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم إني صائم وحير النبي صلى الله عليه وسلم هدي قفكين أو قف عايو أما أو لد قالوا أو يعني وحكو نفتو أما أو عايو هير هذا نيوروا كأرسن كرا لكن سبب تأيدي إن كأرسده وحويان أنا وصمره أنا وكأرسن كرا أنت سميت هذا الكحنو تري هذا الحنو وكله كرا وأنكو عاي كرا لكن إني أخاف الله رب العالمين وصومنا صوم كاسب إيدي ديا إن كأرسن أي صوم كان إيدي ديا حب كاسب لقدوية نبي الله صلى الله عليه وسلم فإن سابه أحد أو قاتله حد يوقف عايو أما يوقف لدى قلم فليقول إني صائم إني وكل العلنية أفو كدايا وصومنا إسا إسعلنا مركز الانزجار إسا إسهروريا أما قفك كلا أيو هروريا إسا وحولي إسا إسو شاكينيا وصومنا ما هي ننكا ومكا أرسل لها أما ننكي بولي سكلا إيغا مرك سنيدي وكا أرسل لها لكن صومك إيا إيكا ديدي إلان كا أرسل هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولبنا فضل مركي نبي كشكيه صلى الله عليه وسلم وصوم كليه وحل حسابك الحديث كاس نفتيسه وضرغديسه تسنيسو والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك قفك صومان افكيسه وحيابه صوفوله وخلوفك وحيابه وباهده iyo waxa la midka ay keeneen ilaahi agtiisa subhanahu wa ta'ala waa uga udug badan yahay waa ka udug badan yahay midka miskiga oo wax alla waxa uu istaan ugu carafta badan waxa ka udug weyn oo ka caraf badan yaani qofka sooman afkiisa sida ilaahi u soo dhaweynaya feeri qofkii marka saadarteed waxa weeyaan marka حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث كاس نفتي سوى أهابة دروز سقار كمدة والنبي يقول صلى الله إلهي بعدها يا أبو حديث القدس ولي هي قفك بحد ما رتب حويان كل عمل ابن آدم عمل كيس دمانتي له ابن آدم كيا إسكاله إلا الصوم صوم كما هي إلهي فأنا أجزي به أنا يا أبو المرنية أبو المرثس أنا بحين يبني أعماش كلو دان أوقفه سمايو ابن آدم كأي إسكاله إلا محوها مارتين صومكم ما هي صومك أنا إسكاله أيوه وأنا أجزي به أنا أبال مرين تاسي وكسر سادبا أعماش كله لا لابو أنت لا لاب لأنه وحيري أعماش كله وحلا لابا طبعا يا لا لاب أيوه وحي كسي بضم إلى أضعاف ربضان لكن صومك وحسنون وكسي سرية وحسنون صومك وكسي لابلا بدي هل كم مالو تصونتو وحي كفض اللي بدن تهي بقول سنو محد عملك اللي سميوك أيضا كفض البدن صومك كفض البدن وكفض البدن مركب مالنكي
oo la soomo la ilaaliyo laakiin waa soomka gaashaankiisa aan la jeexin oo laga ilaaliyay waxa la wixii rafas ah waxa la wixii xumaana waxa la wixii maxad maartay qofku uu adduunka ma midan joogin oo iska dhigaal raba waxa la inuu is dhageeleysiiyo midan waxaad arkaynin xaraam indhaha oo ka ilaaliyo raba inuu ku eego qofku marka intuu sooman yahay inuu xaraam fiirin baa la rabaa qofku marka uu sooman yahay inuu hadal xaraam maqlin baa la rabaa qofku marka uu sooman yahay inuu san ku afurin markuu afurayo xoolo xaraam ama wax shubha ku jirto calooshiisa inuu xaraam geliyo ka ilaalinaya wuxuu ka ilaalinayaa lugihiisa inuu ugu socdo ilaa xaraam inuu lugihiisa ugu socdo ayuu ka ilaalinaya acdaadiisa oo dhan gacantiisa wuxuu ka ilaalinayaa inuu xaraam ku soo qaato ama meel xaraam u taago haweeney ajnabi inuu taabto midalan ayuu ka ilaalinaya gacantiisa inuu haweeney ajnabi taabto ayuu ka ilaalinaya maxad maartay inuu xoolo xaraam ku qaato ayuu ka ilaalinaya afkiisa saas inuu uriyo xaraam wax is u banaaneen urintoodu oo maxad maartay inuu uriyo ayuu iska ka ilaalinaya qofka muxuu iska dhigaya qof dhigala qof indhala qof lugala qof gacmala marka loo eego si uu soomkiisa ugu badbaado walidaa saas ayaa sharcigeenu oo u jideeyo qofka sooman oo bisha ramadaan aad loogu suneeyay sanadku dhan waa wada sunna i'tikaafku laakiin bisha ramadaan aad u sifadii baantay siiba ayaamihiisa maalmaha marka la eego maalmaha marka laana maxaa dhacay hadduu misri qofka ku soo xaroodo ee uu meel gaara ka fariisto ee uu maxad maarta quraankiisa akhrisanayo waxa u badbaadaya acdaadi oo dhan u badbaadaysa xaraam uma lugaynin xaraam gacanta kuma qaadanin xaraam ma urinin xaraam afka ma gelinin ma xamanin xanti oo iska yaana kaligiis oo meel u baxay marka darteed qofku inuu aad isu ilaaliyo bisha ramadaan rag iyo dumar intaba waa iska war badannahay waa iska xumaan badannahay waa iska been badannahay waa in waxaas oo dhan qofku marka bisha ramadaan inuu ku tala galo ma ogin waxa laga yaabaa in bil dambe ramadaan aanan gaarin bil dambe oo ramadaan inaanan gaarin hadda bisha ramadaan oo hadda aan sugayno marka bishii sanadkii hore dad badan oo xaafada deganaa ayaa ka intiqaalo aakhira aaday la shaka annaguna waa tageynaa maalin baan tageynaa ma maalma naga xiga ma saacada naga xiga geerideeni ma bilaa naga xiga ma sanada koobana naga xiga ma garanayno maadaama ay saas tahay wal amru mubham arrinkuna oo mubham yahay oo naga qarsoon yahay inaan haddaba aan dadaalno inaan isdhahno bishaan ramadaan kale inaadan tegin ayaa dhici karta inaadan gaarin mid kale ayaa dhici karta waxaa la yaqaanaa dadka muslimiinta yacni waxaan samaynaa annaga dhan naga dhacda bisha ramadaan markay dhammaato waxaan dhahnaa alleela wax fiican ba adaa samaysan ramadaanka dambe talo ma gaarin doon waxaad dhigto waa la arki doonaa ramadaanka dambe waxaad samayso taraawiixda aad tukato oodan marna ragcadna aadan u goynin salaadaha jamaacada aad ku ilaa takbiiratu ihraamka aad ku ilaalido saan yeelo waa la arki doonaa markaas haddaba kii horeba ka sii daranba ramadaankan kii horeba ka sii daran waaba ka sii dembi badannayba haddana waxaan dhihi waa isxanjifinayna midka dambe ma gaari doonaa hadda waa kan waa gaarno ilaahay waana soo gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala ilaahay waana soo gaarsiiyey qofkii aan maalmaha kooban oo maalmaha shanta ama maxaad maartay waxa la midka ah aan geeriyoonin waa aan joogna ilaahay waana soo gaarsiiyey subxaanahu wa tacaala aan ka qanimaysano oo aan aad ugu dadaalno oo aan maxaa la yidhahdaa ka ilaalino wax aanan weligaan samayn aan samayno is ilaalin marka la fiiriyo iyo isxakamayn si aan haddaba jannada ugu dhowaano sidii aan aan jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala aan u galno ilaa waan maqlayn xadiidka nabiga sal allahu alayh wasalam aljannatu maxfuufatun bilmakaarih waxa naftu necabtahay baa lagu hareerayay waljannatu wannaaru maxfuufatun bishahawaat naartana waxaa lagu hareereeyey waxa naftu ay jeceshahay qofku waxa naftu jeceshahay hadduu sameeyaan dhahnay khalaas inuu naartii galay oo kale noqonaysa wax alla waxa naftu jeceshahay sidaan samee saan yeel waxa rabta dhe waxa rabta samee waxa rabta afka ka dhe waxa rabta cun waxa rabta cad meesha rabta aad waa qalad aad weyn markaas qofka shahwadiisii
shahawaadkiisa ku dhex jira hadduu laakiin qofku xakamaysan yahay oo qof xakamaysan u yahay ma hadduu yidhaahdo waxaas hadalkaas dheh naftu tiraahdo may ima banaana saas inaan sameeyo ilaahay baa arkaya subxaanahu watacaala allahu rabbulcaalamiin yaraani ilaahay baa ii jeeda oo i arkaya allahu yanduru ilay ilaahay baa fiirinaya allahu yuxaasibunii ilaahay baa i xisaabaya subxaanahu watacaala ilaahay baa i xisaabaya saas inaan gashanno haddaba bes markaas ilaahayna aan naqaano waxa weeyaan weyninkiisa iyo cadamadiisa allihii weynaa ayaa kuu jeeda marka la yidhaahdo qofku waa isxakamaynaya markaa waa joogsanaya marka baaraka allahu fiikum bisha ramadaan inaan cibaado iyo daaco ilaahay ku soo dhoweyno inaan daaco ilaahay ku soo dhoweyno qalbi furnaan inaan ku soo dhoweyno cafis muslimiinta in la iscafiyo daris iscafiyaan oo xanuunadan dadka ku faafay oo qabaliyada ah oo maxaad maartay waa jiro aad u weynin badan dad oo daris ah oo qabiil iyo xiqdi qabiil isu qaba waa dulinimo aad u weynin badan waxaas waa wax shaydaan min camal shaydaan ayuu arrinkaas ka mid yahay in la iska dhigo meel muslimiinta oo dhan la iscafiyo meel alla meesha joogaba laanna maxaa dhacay camalkaaga la kor yeeli maayo xaggana loo kor yeeli maayo yacni haddii aadan dadka labada qof sida nabigu u yidhi sala allahu calayh wasalam ilaahay baa dhahaya andiruu haadayni labadan wax isu qabta oo xiqdiga axqaadda iyo adqaad iyo qalbigooda ay isugu qaba belaayo isu qabta arrinkooda meeldhiga xataa yatuuba ilaa ay toobad keenaan ayagu isu laabtaan iscafiyaan camalkooda kor loo qaadi maayo marka baaraka allahu fiikum inaan bisheena soo dhoweyno inaan go'aan ku gaarno inaan camalkeena laalaabno camalka saalixa ah qiraa'atu alqur'aan waa wax ugu maxaa la yidhaha aad iyo aad naftoo la xakameeyo laba arrimood haddaad laasimtid qur-aanka akhrintiisa aad badisatid naftaadana aad reebti ka celisid xumida ka celisid laa shaka qofkaasi waxa weye jidkii wanaagsanaa oo la doonayay bishaas faa'iidadeedii waa uu helaya maxaad maaragtay daacada ilaahay oo soo xaadiro salaadda oo soo xaadiro sanadyaal badan ayaan belaayo kasbanayn belaayo walba waa jamcino waa aruurinay hadal xun oo kasta ficil xun oo kasta waa samaynay waa ku maxaad maaragtay waa ku dheeraanay haddaba inaan bishaan ka soo tagno oo sidii nabiga sala allahu calayhi wasalam ka sugnaatay idaa jaa'a ramadaan buu yidhi haddii bisha ramadaan ay dhalato futixat abwaabu ljanna jannada albaabadeeda waa la ballaqaa wagulliqat abwaabu nniiraan abwaabta naartana waa la xiraa wasufidat ashayaadiin shayaadiintana waa la katiinadeeya waa la silsiladeeya katiinad baa meel lala dhigaa si aysan lianlaa tufsida siyaama asaa'imiin dadka sooman soomkooda si aysan u fasaadin ayaa ilaahay u qabtaa subxaanahu watacaala oo loo xirxiraa xabsi loo dhigaa meel xun baa la geeyaa haddaba inaan waqtigaas aan soo kabanno oo shaydaanka waa la soo daynayaa bisha ramadaan markay dhammaate inaan haddaba aan maxaad maaragtay aan ku dadaalno oo nafteena aan maxaa la yidhahdaa daacada ilaahay aan badsanno xumideena aan ka joogsanno oo annagu aanan haddii shayaadiintii waaweynada xirxiray shayaadiintii insiga ahayd ma xirna ayadu waa isdhex yaacayaan balaayadii waa isdhex yaacaysaa laakiin kuwii shayaadiintii jinniga ahayd oon loo jeedin baa ilaahay naga xiray subxaana wa tacaala marka baaraka allahu fiikum yaanan caloosha kaliya ka soomin baahi kaliya yaanan cunto kaliya iyo cabitaan kaliya yaanan joojin waxaa nabiga ka sugnaatay sala allahu calayhi wasalam yacni inuu nabigu yidhi sala allahu calayhi wasalam qofka yacni maxaad maaragtay soomkiisa oo soomkiisa la aqbalayo oo soomkiisa fiican yahay waa midka ka sooma wax alla wixii ilaahay ka xarimay oo dhan ka sooma waa inuu ka soomo wixii ilaahay ka xarimay subxaanahu wa tacaala oo beenta uu ka tago oo xanta uu ka tago xumidoo dhan ka tago waxaa nabigu yidhi sala allahu alayh wasalam man lam yadac qawla الzuuri waalcamala bih falaysa lilahi xaaja fi an yadaca طacaamahu wa sharaabah qofkaan ka tegin buu yidhi beentii iyo zuurkii iyo maxaa la yidhahdaa gardarradii dadku u gardaersanayay iyo xantii iyo balaayadii oo dhan qofka aan ka tegin ilaahay wax dan ah kama laha ka tegidda oo ka tegey caabitaankiisa cunadiisa oo ka tegey biyihii iyo cuntada oo ka tegey wax dana ilahay kama laha subxaana wa tacaala yacni maxaad maaragtay meesha waxa weeyaan arrinkaaga soonkaaga inuu sara mara ma rabtaa
إنه إلهي سبحانه وتعالى رالي كان المربطة ها عبدي عنودك يا ما هو حلقة رفعتها وإن أضمحول بكسونتا صدق عنتاد وقصونتي وأدبيها وقصونتي وإن أضحنت وقصونتا وبينت وقصونتا وهذا لبديد وقصونتا وحارب عنيد وقصونتا وملح الآيست وقصونتا جميع المحرمات إن تكسونتي بالدنيا إن خصونه أي نقول تاسع لنا كرم بارك الله فيكم مركز إلهي أنا وافق سبحانه وتعالى وحل بشن دعاء إن لبضيو هبين والباء وبشن كمدا نارت أي إلهي سبحانه وتعالى وكحريا إن بدن بدن أو ممن استوجبوا يعني دخول النار ذاتك واجب سدي نارت إن قلان عمل حون كو واجب سدي أي إلهي سبحانه وتعالى كحريا نارت كحريا دم بيقولوا رافع تجليات إلهي سبحانه وتعالى إلهي بأدوميس وبنبحيا مركز محد نارتي دم بيقولوا رافيا شيطانك كعريسينيا dadka inta shaydaanku tacbanayay ayaa ilaahay wuxuu waafajiinaya qofka raxmadiisa oo doonayo inuu toobad keeno inuu muumin dhab noqdo inuu mis ku xabisnaado inuu maxad shaydaan ka soo haro shaydaankii ba ooyay ilaahay ba farxaya subhanahu wa ta'ala dambigiisa bal dhaafaya xumidii uu soo sameeyay jiran sanooyinka badan soo sameeyay oo dhan ayaa loo dhaafaya dadkaas inaan ka mid noqono dhamaanteen xumaan ayaan wada sidnaa qashinaan wada wadnaa dambiyaan ayaan sidnaa سامبشا أضادي لهين أو واحد سقوا بلهين وأن إلهي سبحانه وتعالى أو نوجر هذا نقول لها فلك أنا قبلنا أو كد ذلنا أيام نلقى دبون الله نبوا فتيو وبالله توفيق وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.